waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo suuro geliyay ogolaaday qorsheeyay dhaamkan degmada Sabawanaag gaar ahaan magaalada Badarwanaag laga qodayo iyo dhaamka labeeye oo isaguna mashruucan la mataan ah oo laga qodi doono insha Allah taala isaguna degmada Dacar Buruq labada dhaam oo ah dhaamam waaweyn oo harooyin oo casri ah oo labada deegaan ee isku mataanaysan insha Allah taala ay ka faa'iideysan doonaan qorshaha iyo balaanka sameeyay wasaaraddiisa ku amray wasiirkuna uu sida ballaaran uga hawl galay iyo hay'adii gacanta ku haysay oo inantaas inagala joogto oo iyaduna qorshaha saaka assessment-keedii iyo balaankeedii dhisaya oo dhigi doona insha Allah taala aad baan ugu mahadnaqaynaa waa hawl loo baahnaa biyuhu waa ognahay abaaraha badan ay nagu soo noqnoqday iyo deegaankeenu sida uu baahida weyn ugu qabo inuu biyo helo sanadahan ugu dambeeyay roobabku dib bay nooga dhacayeen deegaanada biyuhu way ka fogaanayeen biyo dhaan badan baynu gelaynay marka in la helo meel marka noocaas oo kale abaaruhu u dhacaan lagu baxsado oo deegaanada ku hareeraysan deegaankan u manaafacadsado aad baa baahi weyn loogu qabay dalka baahida ugu weyn ee maanta la qabaa ee waxbarashada ka daran ee caafimaadka ka daran waxa weeye waa nolosha waa biyaha weey qofku hadduu biyo waayo waxna ma baran karo meel laguma daweyn karo waxa ugu horeeya u baahan yahay waa inuu biyo helaa waa nolosha jirkeena 70% noo cilmiga amalihiya waxa la yidhi biyuhu ka koobay marka haddii biyo waayo qofku nolol ma jirto inaynu biyo deegaanadeena u helno oo ay siyaasadda wasaaraddu arrimaha horumarinta biyuhu ay ku hawl gasho ayadoo aynu arkayna in deegaano fara badan oo dalka ay ku wareegaysay waxay tahay aad bay muhiim u tahay waa xilliyadan adag waxaan filayaa waa wasaaradda kaliya ee imanka horumarintii iyo loo ogolaaday inay horumar samayso mashaariicda horumarinta oo dhan deegaanadeeda waa la hakiyay laakiin wasaaradda horumarinta biyaha sidii bay hawshii ugu jirtaa marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo wasaaraddiisa biyahaba inay isku hawleen arrintaa waxa kale oo ku darayaa deegaankan Badarwanaag waa deegaan taariikhi ah anigu jabhad baan ka ahaa jiray oo xeradayadii waa halkan bay ka muuqataa aniga madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ba geedkii aan soo xajiray halkan buu ku yaala marna xurfadu ahaa marna halkan Badarwanaag halkan ku yaala buu ahaa waa xaruntayadii waa meeshii aanu markii dalka la haystay aanu halka ka abeen walba ka duuli jiray aanu mari jiray xusuus gaar ah bay leedahay markaan imaado iyo markaan maraba si gaar ah baan xusuustaa madaxweynuhuna deegaan buu haydo muddo dheer buu nala joogay halkan aniguna jabhad baan ka ahaaday waa ka marna waa ka dagaalami jiray mar waa ku soo hoyo jiray waa xaruntayadii oo aanu aad iyaanu jecelahay waxaan ku darayaa deegaankan waxay yiraahdeen walaalow jamhuuriyadda Somaliland waxaan nahay hooyadii Somaliland waa runtooda waa dadka had iyo gooraale deegaankanu nabadda Somaliland ku suntan wala noolaanshaheeda iyo wada socodka Somaliland jecel ka shaqeeyo waqti badan galiyay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin danta Somaliland baa ku jirta Somaliland maalinta waxaan arkay rag waaweyn oo hadlaayo waxay leeyihiin burburkii Somaliland baa soo muuqda marka ninna wuxuu rajaynayaa uu naawilaya burburkeeda ninna wuxuu naawilaya nolosheeda iyo wanaageeda marka wuxuu ku farxayaa ninka burburkeeda doonaya waxa saa dhacay ma maqasheen uu farxsan yahay maalinta la yiraahdo waxba dhacay way wuxuu naawilayaa inay burburto ninna wuxuu doonayaa inay noolaato inay horumarto inay adduunyada la higsato inay wuxuu ka naxayaa wixii xumaanaya dhaca marka ninkii doonaya inuu Somaliland manaafacaadkeeda wax ka helaa waa inuu nolosheeda ka shaqeeyaa wanaageeda waa inuu ka shaqeeyaa dadka Somaliland waa dad wada walaalaa waa dad isku mid ah waa dad aan la kala geey karin waa dad iyo nolol iyo ay ka dhaxaysa dawladda marka ummadda wanaageeda laga shaqeeyo qofka wanaageeda ka shaqeeya ayaa ilaahayna ugu dhawaanayo aakhiradeisa wanaagsanaya dadka dhexdiisa sharaf ku yeelanaya ninkii kala geeya ee xumaanteeda ka shaqeeya ee fidnadeeda ka shaqeeya waxay ku soo noqotaa naftiisa ku soo noqotaa waanu qomameeyaa kuwii wanaaga ka shaqeeyay Somaliland way mahadiyeen marka waxaan taana leeyahay war ummadda isku wadkeeda iyo walaalnimadeeda laga shaqeeyo kala fogaanteeda hal la daayo xumaanteeda hal la daayo waxyaabaha yar yar ee la isku hayo ee aan weynayn hal laga hormariyo danta Somaliland marka taasna intaasaan ka leeyahay deegaankan iyo reer Somaliland iyo degmada Sabawanaag iyo xarunteeda Badarwanaag maanta aynu joognana waxaan leeyahay mashruuca idin yimi wixii kalena waa gaari doontaa kaana waa bismilaysan doontaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasiirka iyo madaxweynaha
hawsha soo qorsheeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa kale oo ugu mahadnaqayaa odaygeena weyn ee Cali Maxamed Waracade oo ah lafdhabarta Somaliland oo ah odayga Somaliland oo ah marka ay shaqaqooyinka iyo dhibaatooyinku dhacaan qofka kaliya ee damqada ee u damqada Somaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maanta nala socda isagana waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr wixii wanaag ahayd Somaliland uga soo shaqeysay horena ilaahay jazaayigeeda ka siiyo taadi marka ku hawlan tahayna insha Allah ta'ala khayr baad ka gaari doontaa qofkii wanaaga ka shaqeeya waa uu hela jazaayigeeda uu hela wanaag uu hela kii xuma ka shaqeeyna jazaayigeedu heli doonaayo ninkii xumeeyo dalka iyo dadka maalin baa ima doonta uu qoomameeyo yiraahdo maalintaas sidaa inaan idhaahdo ma yahay marka taasna intaasaan ku leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin shaariicda kuwa maanta waa noo guddoon kuwii dambana insha Allah ta'ala waa sugaynaa aad iyo aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh